daawadayaal markaana wararka ka imaanaya dalkaasi Mexico ayaa sheegaya in la dilay hogaamiyihii kooxda ka ganacsi jirtay daroogada loona yaqaanay Almencho. ciidamada militariga ee Mexico ayaa xaqiijiyay in ay dileen hogaamiyihii mid ka mid ah ururada dambiilayaasha ee ugu awoodda badnaa dalkaasi Mexico kana ganacsi jiray daroogada ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaanay CGNG. ninkani oo magac ahaan loo yaqaano ama magaca caanka loo yaqaano uu yahay Almencho ayaa howlgallo ay fuliyeen ciidamada dalkaasi Mexico ayaa waxaa maanta lagu dilay dalkaasi. ciidamada Mexico ayaa sheegay in Almencho muddo dheer ku jiray liiska dadka ugu halista badan ee la doondoonayo kaas oo maanta ku dhaawacmay rasaas intii lagu guda jiray howlgal lagu soo qabanayay. isla markaana wuxuu u geeriyooday intii lagu guda jiray duulimaad geyn lahaa magaalada caasimadda dalkaasi Mexico ee Mexico City. howlgalkani ayaa la sheegay in ay ka mid ahaayeen hay-ado ammaan oo kala duwan waxaana xogta inta badan bixinaya ayaa la leeyahay dalkaasi Mareykanka. kadib dhimashadii ninkani gobolka Jalisco iyo gobollo kale oo ka tirsan dalkaasi waxaa ka dilaacay rabshado aad u fara badan. wadooyinka ayaa la xiray, gaadiid ayaa la gubay, waxaana jiray rasaas iyo cabsi xoog leh. dowladda iyo saraakiisha ammaanka ayaa ku dhawaaqay in wadanku uu galay xaalad amni iyadoo dadka lagu boorinayay ama lagu wargelinayay in ay joogaan guryahooda. sidoo kale waxaa la kansaday duulimaadyo garoomada laba garoon oo dalkaasi ka mid ahaa ka ambabixi lahaa. CGNG ayaa ka mid ahaa ururada maandooriyaasha ee ugu xooga badan Mexico lehna malaayiin dollar oo ay ku keeneen ganacsiga muqaadaraadka. waxaana haddaan ka hor la kordhigay madaxa kooxdaasi iyo cidda keenta xogtooda in la siin doono 15 milyan oo dollarka Mareykanka ah. dhacdadani ayaa calaamad u haya la leeyahay guul weyn oo ay sheeganayso dowladda Mexico, laakiin waxay dhashay ayaa la leeyahay jahawareer iyo rabshado horseedi karo xaalado amni oo sii xumaado u galo dalkaasi iyadoo dadka deegaanka ay ka baqanayaan sidoo kale inay xaaladuhu ka sii darto maalmaha soo socdo. daawadayaal wixii warar dheeraad ah oo ka soo baxo waxaan in kula wadaagi doonaa page-keena.